بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa xaruntii dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa soo dhamaaday oo aan hadda ka soo baxnay shirkii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada ee galab kasta khamiisa ka qabsoon jirta xafiiska prime ministerka shirku maanta runtii wuxuu lahaa muhiimad aad u weyn waxaana lagaga hadlay arrimo taabanaya nolosha iyo xaaladda dalka shirka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble xubnaha golaha wasiiraduna ay si buuxda uga soo wada qayb galeen waxa lagaga wada hadlay koow dardargelinta doorashada way ogtihiin doorashadii way jiitantay mudday soo socotay sanatarkii ugu horeeyay waxa la doortay July 29keedii ilaa haddana doorashadu way socotaa runtii arrintaas goluhu maanta aad isla soo qaaday ra'iisul wasaaruhuna ku tirtirsiiyay in la dedejiyo doorashada xaaladdu waxa weeye doorashadu jiitankeedu wuxuu keenay arrimo badan wuxuu saameeyay dhaqaalihii wuxuu saameeyay noloshii dadka wuxuu saameeyay maalgashigii wuxuu saameeyay deeqii caalamiga ah wuxuu saameeyay shaqadii maalinlaha ahayd ee dawladda oo dadkii qof walba wuxuu leeyahay doorashan aadaya iyo mashquul baanahay iyo hawl baa lagu jiraa marka si arrimahaas oo dhan looga baxo golaha wasiiradu galabta wuxuu gudoomiyay in la dardargeliyo doorashada qaranka sida ugu fiicanna ay u dhacdo waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu uga warbixiyay xubnaha golaha wasiirada madaxsha shirkeedii uu qabsoomi doono 27 bisha waa loo diray tigidadii iyo diyaaradihii iyo hawsha dhan waa la isku dibiriday 27 bisha ay halkan isugu imanayaan madaxdii madasha qaranku si loo dardargeliyo doorashada isla markaana loo sameeyo waqtiga ay ku eg tahay iyo deadline-ka si shacabka Soomaaliyeed ay u ogaadaan waqtiga doorashada ay dhamaan doonto arrimaha doorashada oo inagu raftay maanta goluhu aad buu ku dheeraaday qodobkaas buu ahaa qodobka labaad ee maanta uu ka hadlay golaha wasiirada lagaga hadlay waxay ahayd oo aad u muhiim ahayd amniga waa laf dhabarta dalka amnigu wuxuu saameynayaa nolosheenna oo dhan amnigu waxa weeye laf dhabarta qarannimada sidaa daraadeed ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay isla garteen in la dardargeliyo amniga maadaama lagu jiro xilli doorasho oo aad u adag xilliga doorashada iyadoo mar walba waajib tahay in amniga kor loo qaado haddana waxaa laba gooraalaba la sii adkeynayaa xilliga lagu jiro doorashada si loo sugo amniga wuxuu faray ra'iisul wasaaruhu hay'adaha amniga dhammaantood gaar ahaan wasaaradda difaaca wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga hay'adaha amniga in ay shaqadooda amniga ay laban si ay inoogu dhacdo doorasho ammaana oo codeeyaha iyo musharaxiinta iyo dadweynuhuba ay u galaan doorasho nabad qaba doorasho fiican xaaladda dalkana gacan bira loogu qabto arrinta amniga runtii iyadana aad baa loogu dheeraaday waa qodobkii labaad ee laga hadlay waxa kale oo maanta la isla soo qaaday oo aad u muhiim ahayd abaaraha oo xaalad adag lagu jiro ra'iisul wasaaruhu arrintaa wuu faahfaahiyey kolley dibna wuu ka sii sharaxi doonaa xaaladda abaareeda lagu jiro iyo dhibaatada iyo ilaa hadda jawaabaha ka yimi saaxiibadeennii caalamiga ahayd iyo howlaheennii iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ugu tala gashay ra'iisul wasaaruhu kolley wuu ka hadli doonaa maantana aad baa arrintaa looga hadlay waxaa kaloo maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay arrinta caafimaadka waxaa soo laba kacleeyey oo hirkiisii saddexaad ina soo gaadhay COVID-19kii qaybtiisii omicronka arrintaana golaha wasiiradu way isla soo qaaday in gudiyadii dib loogu yeero coronaviruska ka shaqayn jiray ee xukuumadda ahaa arrimaha ugu waaweynee maanta shirka golaha wasiirada lagaga hadlay taasay ahayd xooggooduna wuxuu ku dhacayay arrimaha siyaasadda doorashada madasha shirka iyo qabanqaabadeeda ee lasu imanaya si loo helo deadline-ka doorashada iyo arrimaha amniga oo runtii dhammaanteen ina taabanaya intaasaa shirkii golaha wasiirada maanta lagaga hadlay waana mahadsantihiin